ciidanka qaranka ergaabo jooga ama area jooga haddii reer hebel lagu sheego guushu gaadhaba dhadhanku yeelanaya waa kii dhadhankeebuu yeelan midda labaad anu kalsoonida aan qabayo markay jabhado baabuur wati ay dalka gudihiisa joogaan iminka magaaladii burciyo gobolladii bari aanu ma tegi karo waayo securityga naftayda kuma aaminayo because ciidanan dawladba ka marqadan baa joogaysan ugu aaminaa haddii dadka Soomaaliland ku nool qaybay jabhada haysato dadka kalena waxay ku khasbanaan doonaan inay jabhada samaystaan iyaguna isku difaacaan haddii 6 bilood lagu qareemay waayo magacii ciidanka qaranka la soo celin waayo adalin baayar ciidan la yiraahdo baad ku arki doontaan Booramiya awdal Soomaaliland bari baa laga soo weeraray ninkii bari ka difaacaya halka imanaya ciidan keenaya annaga kaayo ku wareejinayno jirkaan u seexaana haddii qoriga aad u aragtaan wax sharaf leh oo ciisi iyo karaamo lagu helo annaga kaayo ku wareejinayna kuwa SSP ku qorantay sidooda ugu wareejinayna hay maado kale dalka difaaco xilaan waxa aadina waxaan cadeynaya xilaan inaad adigu Soomaaliland aad sheegayso adigu aad uga xaq badan tahay $4,000 in ka badan aad mushahar uga qaadato Soomaaliland oo cashuurtoodiya iyaguna aanay maalin walba mushahar la'aan ugu dhigtaan gobolada bariga la ceebeeyo oo laga dhigo area dangerous idina aan geli karin haydana aan geli karin laga dhigo amni aan ahayn laakiin waxaan leenahay waa amni ciidana ma joogo ciidanka qaranka iyo sharciga Soomaaliland baa ka taliya xildhibaan madilowdi ololihii dhaweyd markii SSP ay aasaasnayd ee aad burco aynawa ergaabo inta nabadgelyada ku mareysay qoriga aanu sideenno haddii aad u aragtaan aan naf ku qabno oo aad u haysataan wax naf iyo nacsi noole annaga kaanu haysano SSP da qoriib saareen mid ku wareejinayna ninkii dagaalamayo ee qori u xiisa qabo kaalay waxaan leenahay ciidanka SSP halaga waantoobo ninkii si kale ciidan u doonayay ninkii si kale wax u doonayay iskii haw doonto laakiin annaga jimhadna lagu tilmaamo amniga khatar ku ah anagu jimhad ma nihin dadkii deegaanka aanu nahay waanu naqaano xildhibaan xaqa iyo dadna yarta u dooda maanta كمان فرين حلمان محمد عبيب إنه إذا SSP كنت معه أرجع حسوا أمان كذلك خطر كوه وقبل هذا بريقنا كذا كوه إيريا دان تراسة يعني عيد جل كريم. يعني هذا وحورن تونا نكى واحد نجي ما هو نجي علي إيه بقول هتاجنا نجو ونكينا وأنا نجا بصدا قال بري واحد كتير نبت بقى ترتد دتكو واجي هاي مركا هذا وحورن تونا نيو عالم بس واحد لا نمير قبا حد لا نيو عالم بحد لا نجا بصدا taasaan ugu taagana waxaan u aragnaa horta nin waalan wax ka soo qaad male in Habib waa nin waalan Turkiga waa meer qaba qof waalanna ninkaas wuxuu doonayaa inuu ummadda isku diro inuu gobolada bari ay hadlaan inay Samaroon caayaan in Samaroon meel laga dhaco dadkaas inay isku dhacaan buu doonayaa kowradii in Habib waxaan leeyahay nin waalan Turkiga waa meer qaba waa Samaroonay dadka qabsada inta hadhow oran dad baa sukaaya soo raacay inta hadhow oran gobolada bari baa lagu soo duulay inta hadhow oran isaaq baa lagu soo duulay inta hadhow oran nin baa naga xulay inta hadhow oran nin baa naga xumeeyay cirana kalmad baan leeyahay waxa leeyahay ciroy inamadii isaaq ee ku ololeynayay ee ku dhintay oo adiga xirxirayay xaqooda marsiinayay tan waa sharci nin walba uu maraya diinaha ibn xaqiisa marsi baan leenahay gobolada bariga kelmadda waxaan u arkaa meel ka dhac gobolada bariga nabadgelyo way ka jirtaa boqolkiiba boqol gobolka Sanaag iyo gobolka Burcaba nabad baan ku joognaa wanaga joognaa waxaan leeyahay kelmaddaas kulmad gobolada bariga qabata maaha Maxamed Abiibna waxaan leeyahay raali gelin ka bix horta wuu iska hadlay halka waxaan u arkaa nin dawladii hore Muuse Biixina wax ka ruuxanayay oo wixii adigu ay u hirgeli waayeen oo taa uu ku waayo waa sidii dhowr jeer la xidhay waxa weeyaan tan dabana xukuumadii dabana wixii dambe uu ka filayay nin ka waayay baan u arkaa kaana wasidaadigo uu ka lahaa burco ama qarnada Soomaaliland uu ka sheegay waxaan moodaa in qaybna sax ka tahay qaybna khalad ka tahay inuu burco kaligeed ataaga ma yahayn inuu kaliya ku eekaada bay ahayd ciidamada midaniga ah ee magaaladii shacabku marayay qoryaal dhex maraya anigu burcaan ku dhashay gaari qul saarayay sanadka kooro situation ka marxaladda lagu jiro inuu ma taqaana ku eekaada bay ahayd inuu awdal state baan sameeynaa iyo jabhad awdal state baan sameeynaa jabhadda burco difaacaysa ana la sameeysanaya inuu tiraado personal city inuu isticmaalo ma yahayn marka laakiin marka dhinac laga eego waxaan leeyahay madaxweynaha maanta dalka ku fadhiya xukuumadda maanta jooga dadka maanta qoryaha sita ee aan garanayn maxay haytay assessmentii lagu dhaqmayo ciidan ku dhaqmayo aan garanayn hal qarameeyo
tababar ha loo furo siminaarada ha la geliyo maanta anigoo shacaba ka shacabka qoriga sitaa haddaan laba ereys nidhaahno waan isweydaarsanno taxabaddu way qaniinsiinaya maxamed abiib horta marka hore waa nin reer somalilandara laakiin waa qof aan aaminsanayn qadiyadda somalilan wuxuu ka shaqaynayaa kicinta ummadda iyo fadeexadda xukuumaddii horena siduu ku hawaadogay maantana waa ka xaaladda ka hadlaya gobollada bari nabadgelya kama jirto gobollada bari nabadgelyaa ka jirta jiido dee dhib ka jiraadoo farani way jirtaa ciidamada qaranka iyo kuwa madaniga SSB iyo 36 baa jooga iyo ciidamadii qaranka iyo amniga ilaalinaya gobollada bari intooda kale nabadgelyaa ka jirta ceeri gaabac saakaan daawanayay aqalada la lahaa miidiya la mariyay waxbaa la gubay ama waxbaa la dhacay ama waa la bilqaystay dawladda hoose alxamaysay daaqadii iyo albaabada wixii dayac ka muuqdo waana wada xidhan yihiin dhammaan ilaa iskuulka safar la yiraahdo intaa waxa ka waa guri la gubayna ma jiro mid la bilqaystana ma jiro waxaana la been fakatay run ma gaadho marka dadka xasarada iyo Soomaaliland nacaybku ku jiro ama kicinta dadku ku jirto iyo Maxamed Abiib Kow ka yahay